maalintii aad dhalatay laga bilaabo waxaa ku bilowday in lagu tiriyo waqtiga lagu siiyey ayaa lagu tirinayaa waqtigaas waa saacado waa daqiiqado waa sakano waa sanadyo kadibna waa dhammaanaya ilaahi subxaana wa tacala wuxuu noo sheegayaa inuu habeenka iyo maalinta ka dhigay fursad soo noqnoqonaysa qofkii doonaya inuu ka faa'iidaysto wahuwa aladii jacala alleyla wannahaara khilfa ilaahay waa macbuudka ka dhigay habeenka iyo maalinta kuwa isdhafan dhaafahaya oo habeenka imaanaya maalinta imaanaysa oo mid kasta uu maaragtay ku siinaya fursad marka waa fursad liman araada an yadakara qofkii doona inuu waantoobo oo isbedelo oo fakaro habeenkii baa ku imaanaya waa fahmi weyday maalintaa ku imaanaysa waa garan weyday habeen kalaa imaanaya waa garan weyday ilaa ay dhammaato qofkii doonaya an yadakara inuu waantoobo ow araada shukuura ama inuu shukriyo raba xaqa ilaahay kugu leeyahay ayaa lagaa sugahayaa habeenkiibaa garan weyday maalintiibaa garan weyday waqtigu waa socdaa marka sanadka cusub wuxuun xusuusinayaa in waqtigiina la siiyey uu socdo nabigeena sala allahu calayhi wasalam xadiidkan saxiixa ah wuxuu nagu amrayaa in aan ka faa'iidaysanno fursooyinka jira intaysan tegin 5 furso ayuu qofku haystaa laakiin 5 kale ayaa beddelaysa oo meesha ka saaraysa mid waxaa weeye shabaabaka qabla haramika intaad dhallinyaro tahay waa fursad ka faa'iidayso intaadan duqoobin wa sixataka qabla saqamika intaad caafimaad qabtid waa fursad ka faa'iidayso intaadan xanuunsan wa ghinaaka qabla faqrika intaad waxhaysatid waa fursad ka faa'iidayso intuusan faqri ku imaan ku mashquuliya oo niyadda kaa dila wa faraaqaka qabla shuglika haddii aad firaaqo tahay ka faa'iidayso intaadan mashquulin ugu dambayntii wa xayaataka qabla mawtika intaad nooshahay ka faa'iidayso intaadan dhimanin dhammaan waa jaanis caafimaadka dhallinyarannimada qofka waqti haysta qofka xoolo haysta guud ahaan qofka oo nool waa fursad dhammaantoodna jiri mahayaane way dhammaanayaan sidoo kale nabigeena sala allahu calayh wasalam waxaa noo sheegay xadiidka bukhaari welinaayo inay jiraan 2 nicmo oo qiimo badan oo qaali ah dadka badankoodna ay ka dhacsan yihiin oo aysan ka faa'iidaysanaynin oo booskii loo baahnaa aysan dhigaynin waxaa weeyaan nicmatu as-sixa caafimaadku waa nicmo weyn dadka badankooda ma oga kamana faa'iidaystaan walfaraaq qofka oo firaaqa haystana waa nicmo dadka badankooda ma oga marka maadaama uu sana tegay inaan isbaraarujinno oo waqtiga socodkiisa aan ku baraarugno oo aan u sahay qaadanno la kulanka rabbigeena subxaanahu wa tacaala maxaa yeelay waqtigu waa socdaa